الرحمن الرحيم maanta saaka 2 saac oo ay tahay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anaan qisaastay waan ku faraxsanahay ninkii saddexaad maadaama saddex nin oo xukuumanaya hayeen dilka maanta lagu wada fuliyay maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 cisho dib loo dhigay waana dambiilo ahaa codsi baa jiray xagga maartay dadka ah iyo annaka waana la hubinayaa 10 cisho codsiga waxaa wada dhibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhibnay in la hubiyo ninkaas nimankii caasho dilay waa wada yaqaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay xafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhirun baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay goobjoog baan ahaa xataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay saasta annaga fushanay dawladdu waxay tiri fushadaa la yiri dareenkaygu aad iyo aad buu faahan yahay Soomaali weynna waa u mahadinayaa dadkii dambigaas galay caashay Ilyas Aadan ka galay waa la togtay laba ninna waa dambeeya oo 10 cisho ayuu xirnaanaya kiiskan waxaa laga baranayaa 10 xoog leh gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaadahayaan una dhacay kiiskan waana la badbaadayaa ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegaya gidwood Puntland ayaa xukun dil ah ku fulisay laba ka mid ah raggii lagu helay dilkii iyo kufsigii Aisha Ilyas loo geystay taasi oo ahayd gabar yar oo ku noolayd gudaha Puntland. Cali Cilmi Salaad ayaa warbixintan inoo haya. magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa saaka xukun dil ah waxa lagu fuliyay laba ka mid ah 3 eedeysane kuwaas oo la sheegay inay ka dambeeyeen dil iyo kufsi magaalada Gaalkacyo loogu geystay Aisha Ilyas. Cabdifataax Maxamed Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige ayaa lagu qisaasay fagaaro ku yaala magaalada Boosaaso halka Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame laga reebay. eedeysanaha saddexaad ayaa muddo 10 cisho dib loo dhigay kiiskiisa kadib markii uu sidaas codsaday Ilyas Aadan oo ah Aisha aabaheed. raggaas ayay maxkamadda gobolka Nugaal waxay ay dil toogasho ay ku riday 12 May 2019 xukunkaas oo maxkamadda racfaanka ay ku raacday 30 Juun 2019 goobta ay qisaasta ay ka dhacday ayaa waxa goobjoog ka ah mas'uuliyiinta maxkamadda gobolka Bari ee Puntland ee Ilyas Aadan oo ah Aisha aabaheed waxaana qisaasta kadib goobta ka hadlay Ilyas Aadan isaga oo na sheegay in qisaasta dilka ah ay iyagu ay fuliyeen oo ku faraxsan yahay saaka 2 saac oo ay tahay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anaan qisaastay waan ku faraxsanahay ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 cisho dib loo dhigay waana dambiilo ahaa codsi baa jiray xagga maartay dadka ah iyo annaka waana la hubinayaa 10 cisho codsiga waxaa wada dhibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhibnay in la hubiyo ninkaas nimankii caasho dilay waa wada yaqaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay xafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhirun baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay goobjoog baan ahaa xataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay saasta annaga fushanay dawladdu waxay tiri fushadaa la yiri dareenkaygu aad iyo aad buu faahan yahay Soomaali weynna waa u mahadinayaa dadkii dambigaas galay caashay Ilyas Aadan ka galay waa la togtay laba ninna waa dambeeya oo 10 cisho ayuu xirnaanaya 25 bishii labaad ee February 2019 Aisha Ilyas Aadan ayaa dil iyo kufsi loogu geystay magaalada madaxda gobolka Mudug ee Gaalkacyo dhacdadaas ayaa bulshada Soomaaliyeed ka dhaxdhalisay falcelin xooggan oo ku wajahan inay cadaalad hesho Aisha Ilyas